bismillaahi raxmaani raxiim ismaqal iyo daawasho aboon halkani waa channelka halbeega wararka waxaad kusoo dhawaataan warka warbaahinta saaxiibayaal qodobada aan idiin soo gudbin doono subaxnimadana waxaa ka mid noqonaya xasan sheekh maxamuud madaxweyne reer Soomaaliya oo su'aal kulul ka keenay xogaga wadaniinta farmaajo waxaana uu su'aal weyn hordhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Somaliland oo war rasmi ah ka soo saartay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe mar saddexaad ayaa lagu soo waramayaa in dib ugu dhacay caleemasaarkii madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe dowladda federaalka Soomaaliya oo iswarsaar ku sameysay wafdi heer caalami ah oo ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland dowladda federaalka Soomaaliya oo shatigii duulimaad ee dalka kala noqotay mid ka mid ah shirkadaha dalka ka jira waxaana lagu saabeeyay kadib markii diyaaradaasi ee duulimaad ka sameysay magaalada Kismaayo iyo Shiina Culay oo loo magacaabayo xil muhiim ah qodobada ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 7 bisha 10aad 2019 oo diyaar garooba saaxiibayaal daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan saaxiibayaal janaalkan halbeega wararka subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal si share garaya si ay u gaaraan saaxiibada kale ee janaalkan aanan ku xirnayn waa xagaag saaxiibayaal markale ismaqal wanaagsan ayna ku bilownay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha reer Soomaaliya ayaa waxa uu su'aal kulul ka bixiyay xogaga wadaniyiinta farmaajo madaxweynaha reer Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu si kulul uga hadlay xogaga wadaniyiinta farmaajo ee maalmahan aadka loo hadalhayay kadib markii ay ku fashilmeen banaanbixi uu qorsheeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kaasi oo ka dhan ahaa madaxweynaha ku-meel gaarka ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha reer Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxyaabo la yaab leh ku tilmaamay xogag gaar ah oo lagu tilmaamo wadaniyiin waxaana uu sheegay in xogagaasi aysan ka mid ahayn afarta ciidan ee la yaqaano shaqaalaha rayidka ayuu sheegay inaysan qayb ka ahayn xogaga wadaniyiinta farmaajo ayaa waxay soo ifbaxayay maalmihii lasoo dhaafay kuwaasoo ka dhisan dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana ay si toos hoos tagaan villa Soomaaliya saameyn ay ku lahaayeen cidda loo magacaabayo degmooyinka gobolka Banaadir sanadihii lasoo dhaafay waxaana kamid ah shakhsiyaad horbooda banaanbaxa ay qorsheynayso dowladda federaalka Soomaaliya ama banaanbaxa dowladdu ay doonayso waa kan Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi si kulul uga hadlaya dalka Soomaaliyeed ma ahay ciidanka booliska Soomaaliyeed ma ahay ciidanka asluubta ma ahay ciidanka maxaan ku yiraahdaa nabadgelyada ma ahay afartaas ciidan dalku leeyahay weligiisna dowladdu tirtirtay inta badan afartaas ciidan u lahaa kacaankii ka hor military iyo booliska jiray nabadgelyada booliska ka tirsanaa jirtay كان يهمنا مسؤول جنوب بحي عيدا وايد أسلوب عيدا ما هاجر كعان كعيدا وايد أفرت عيدا على سمي حتى نكسر اللي قدام بي أفرت عيدا على قات وحيابا أو ده وحي أن قيني أن كوها اللي كمل هاي وحاد لوجا وحتمين لكن حدنا شرعية ذي حيستان قانوني ليه واتمامين دلكو أفقاس عيدان وليه ساسين أول ناحية عيدان بلودياش اللي راجل ما يرجع تسرعين لما كان شرعية قانونية منعي الذي يحيل الجيران الذي يدين الجيران الذي يحوي يحدد الجيران حرية تقال الجيران جيران كي تاجناين ذكر محو أهلو أذيك الجيران لكن لما قررين وحاني قانون بحد أنا محيصل محيطه دولتي بيرجاز جفتنا بسديد قانون كما صار سنين دولته لما سيكون جيران من قانون يكون جرتان من حقيقة أو ملكة الأمر الواقع حقيقة ملكة تعالى نقطيه وانين من تلو حقوق أرادي كقبصديه لقد ما ضبحني كرو وحي الدولة لوجا بعنا إنه وايلي مدي أمني ولي مدي أديكي المرشد ولي مدي وحي ولي مدي لكن شرعية ما هيستلم الصدارا شعب وعطهم عليهن تركهم عليهن لقد هذا الدولة أدوك واكجرا دولة اللي أو مثلا كعامكم دولة أو أمر الواقع حقيقة كنت مدي إنما عيدا وجبتلي أتلك خبصدي وهذا مات هذه الدولة دي ما لوجا بعنا أنت بدو واقعية
hadday tahay adeegyadii bulshada isbitaaladii iyo iskoolaadkii iyo wadooyinkii iyo amnigii iyo maxaan ku raha wixii baa jira laakiin wixii kale oo maxaan ku raha xorriyaadkii ay ka mid ahaayeen iyo wax badan oo kale yaa maqnaay ama soo gaagaabanaya maalinta ka dambayso siyaasadda waa laisu dili jiray waxyaabaha hadalba wax kamid siyaasadda in laisu dilo waa wax saxa maaha siyaasadda sideeda loo inay ra'yi noqotaa war noqotaa tala soo jeedin noqotaa ra'yi qof jeedi in loo dilo markaa mirna sax ku maaha hadduu meeshaas ka gudbo qof qorya qaato dadka xabadeynta uu badficay tago dee dowladdu waxay u jirto waa markaas dadka waa inay ka qabataa laakiin min meel taagan oo le aniga hebelaa la iiraa ra'yigan dowladnimadaan qabaa ama dowladdaani ra'yigaanay ku qaldan tahay ficilkaanay ku qaldan tahay waxaanaa ka qalloocana hala toosiyo dadku waxaan ma qabato qaanuunkay ka soo horjeedaan waxaan hala dhowro qaanuunka dastuurka hala dhowro qof kale waxaan marina ammaanu mudan yahay ciddii ammaanu weydana waa cid dhinac kale usii dhurtinaysa xagga kale usii dhurtinay baryahan marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan horta waa wadaniyiin goormaa dad yaay waayo qofka xaq u leh xaasha waa wadani ceebnana wadani ma ah alisu waa wadani axmedna ama jaamacna wadani ma ah qofka iskale xukunkaas yaa gaari karo maana maalinta inta laga soo istaaga dhahayo muxuu ahay jaamac waa wadani calisu wadani ma aha ama caasha waa wadani ceebnana wadani ma aha maana dhahayo yaan ahay aniga markaan saas dhahayo qofkaani waa wadani macnaheed markaan dhaho qofaan wadani ahaynaa jira waay soo maaha ya haddii qofaan wadani ahayn aanu jirin qofkaani waa wadani inaan dhaho uma baana dadku waa wadaniyiin dadkooday jecel yihiin dad ilaa qofka uu la yimaado qaanuunku wuxuu dhahayaa qof kasta dembi ma leh ilaa dembi asiga uu la yimaado maxkamad ku caddaysa dembiilo inuu yahay war dadkaani waa Soomaali waa wadaniyiin dalkooday jecel yihiin waa u dhinteen waa u dhiig baxeen waa u taagan yihiin weli cashuurtay la taagan yihiin bixinayaan ayaga wixii cashuurta loogu bedeli lahaa ahli haysan yaa haddana rajacii qabaan bili amaad heshaa awgeeda u bixinaan maanta in kuwana qaanad la geliyo waa wadaniyiin yiraa kuwa kalena wadaniyiin ma aha yiraa sax ma aha Somaliland ayaa waxay go'aan rasmi ah ka soo saartay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Ahmed Maxamed Salaam Ahmed Madoobe xukuumadda Soomaaliland hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi ayaa amar ka soo saartay wafdi dhawaan la shaaciyay inay ka qayb gali doonaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Madoobe xukuumadda waxay sheegtay in la aqbali doonin caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland isla markaana ay aad uga digayaan inay ku milmaan arrimaha siyaasadda ee ka taagan Soomaaliya waxaana ay sheegeen inaysan ka qayb gali karin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland Cabdisamed Cumar Maal gariiqaanka guud ee Somaliland ayaa waxa warbaahinta u sheegay xilli uu kula hadlay magaalada Hargeysa inaysan jirin cid Somaliland ka tirsan ee ka qayb galaysa caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu sheegay inaysan diyaar u ahayn waqti xaadirkan inay ku milmaan siyaasadda isdana ka jira dalka Soomaaliya hadalkani ka soo yeeray Soomaaliland waxa ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay si weyn loo hadalay inay jiraan wafdi ka imaanaya Soomaaliland kuwaas oo gaaraya magaalada Kismaayo si ay qayb ka noqdaan wufuudda tagaysa magaaladaasi kana qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland mar saddexaad ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dib loo dhigay caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana dowladdu is-horistaag ay ku sameysay wafdi heer caalami ah kuwaasoo gaari lahaa magaalada Kismaayo si ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland wararka aynu helaynayo waxay sheegayaan in mar saddexaad dib u dhacay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Salaam Ahmed Madoobe arrintan ayaana waxaan jirin sabab rasmi ah oo laga bixiyay waxaana jira wafdi heer caalami ah ku wajahna magaalada Kismaayo kuwaasoo ay hor istaagtay dowladda federaalka Soomaaliya waxa maalmihii la soo dhaafay caqabad xooggan ee wajahaysay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland waxaana jiray cadaadis dowladda federaalka Soomaaliya kula kulmayo waxaana ay is-hor istaag dowladda ay ku sameynaysaa caleemasaarka madaxweynahaasi wufuud heer caalami ah oo qorsheynaya inay tagaan magaalada Kismaayo kuwaasoo isku jira xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa dowladda federaalka Soomaaliya hor istaagtay inay tagaan magaaladaasi si ay qayb ka noqdaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ilaa iyo weli maamulka Jubbaland muusan shaacin waqtiga sida rasmiga ah loo qaban doono caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi waxaana ay ku astaysnaday 9 bisha
tobanaad ee Oktoobar in caleemasaarku ka dhaco magaaladaasi. wafdi hordhac ah oo gaaray magaalada Kismaayo waxay ku sugan yihiin magaaladaasi waxaana ay halkaas u joogaan ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in Shiine Culey oo ah YouTuber caan ka ah bulshada Soomaaliya dhexdeeda loo magacaabayo xil muhiim ah xilli uu soo ifbaxayeen Cali Khaliif Galleer uu ku soo wajahayahay magaalada Muqdisho waxaana Cali Khaliif uu sheegay inuu imaanayo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya dadyo kala duwan waxa ay si weyn u hadlayeen qaabka Cali Khaliif Galleer Muqdisho uu ku imaanayo iyo danta Muqdisho uu ka leeyahay. warar ayaa waxa ay sheegayaan in xil muhiim ah dowladda federaalka Soomaaliya looga dhiibi rabo Shiine Culey oo ah muwaadin Soomaali oo ku nool dalka Jarmalka si weyn bulshada ay u garanayaan. wararkan soo baxaya ayaa oo aanu ka soo xigeenay warbaahinada qaar ayaa waxa ay sheegayaan in Shiine laga dalbaday inuu soo gaaro magaalada Muqdisho Cali Khaliif Galleerna xamar ugu yimaado si xil muhiim ah dowladda federaalka Soomaaliya uga raadiyo. Shiine Culey ayaa bulshada si weyn u garanaysa waxaana uu ka mid yahay muwaadiniinta ku nool gudaha dalka Jarmalka waana YouTuber Soomaaliyeed oo caan ka ah gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddaba. warkii oo aad ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka saaxiibayaal intaasi ayaan nooga yahay amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.